ururka ay ku bohoobeen shirkadaha macdanta ee Soomaaliland ayaa maanta ka warbixiyay macdanaha kala duwan ee dalka Soomaaliland ku jira iyagoo ra'iisul gaar ah siinayay telefishinkan SBC ayaa waxay yiraahdeen dalka oo kuwa ugu qaalisan marka macdanta waa laba qaybood qaybna waxa weeyaan dhagax qurxeed sida kuwa imika ay hor yaala qaybna waxa weeyaan dhagaxantii warshadaha galeysay amba guriyaha galeysay marka intaba waanu ka shaqeynaa dalkeenu qani buu ka yahay waxa jirta macdano caalamka ka dabarqay laakiin dalkeena ku jira oo hodan ku yahay haddii la maal gashadana horumar weyn ina gaarsiin kara dawladda iyo dalba gabiinaga isku dhan wadooyinka inoo dhisi kara waxbarasho tayo fiican inoo sameyn kara waxyaabaha asaasiga muwaadinku u baahan yahay oo dhan hadday caafimaad tahay hadday wadooyin tahay hadday waxbarasho tahay hadday cunto ma garanaysaa ay nagu filan tahay wax walba inoo horseedi kara oo aynu kaga faa'iidi karno annaguna waxaanu isku kaashanay si aanu macdinta dalka wax ula soo wada baxno oo khayraadka aanu uga soo dadkana wax tusno marka haddii ay tahay dawladda iyo hay'adaha wax maalgeliya iyo bangiyadaba waxaanu dalbanna sida ay dadka kaleba u caawiyaan warsaarad walba dadka ka shaqeeya hoos yimaada ay caawiyaan in macdintana loo caawiyo iyaga ka lacag badan iyaga ka ma garanaysaa horumar badan ay gaarsiin karto maalgashi fara badan oo horseedi karta dhalinyarteena shaqo u sameyn karta wadamo waxa jira adduunka aan macdin mooy waxba kala ka shaqeyn ilaa ka reer miyiga ilaa ka wasiirka ka madaxda kulli oo dhaqaalahooduna heer sare ka gaadhay oo macdin mooyaan aan wax kalaba ka shaqeynin dadkeena ka shakisan ee aaminsan macdintu inay tahay qofka ka shaqeeya inuu jinjeerayo amba la dardarayo waxaasina waxba kama jiraan macdintu tan aynu ku fadhino aynu ku saaxano waa wada macdan hadday guriyaan ku noolahay imise jeeyo macdana ku jira xadiidkii baa ku jira waxa ku jira fowlaadkii waxyaabo kala badan oo fara badan waxyaabahan xidhanahay xitaa macdan bay ka samaysan dadka ganacsatada amba hantida haysatay Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay macdanta ka faa'iideystaan waxyaabaha ay lacag fara badan ku bixiyaan oo faa'iidadooduna yar tahay ayaa macdantu lacag yarna way gali kartaa malaayiin way soo saaraysaa lacag aad u fara badan oo qofkii waliba macdantu waxay ku fiican tahay maalgashigeedu waxeedu waa degdeg markaad wax fiican la soo baxdo markiiba suuq fiican baad helaysaa waxaad wad iibsanaysaa laakiin waxay iyagu sanad sugayeen oo maalgelinayaan ay macdantu ka wanaagsantahay imka waxa laga yaabaa shay dhowr garaama oo aan fara badnayn oo gacanta lagu qaadi karo inuu dhigno $2 milyan waxa laga yaabaa $2 milyan qofka ganacsaday inuu 3 sano 2 sano ku soo saaro laakiin tan waxa ku saaraysaa saacado gudahood hadduu qofku qalabkeedii keensado oo maalgelin fiican geliyo dalku waa buuxaa macdano badan oo qaali ah ka buuxaa waxaan ahay macdano guud waxaan ku jiraa gruubkan ururkan Somaliland Mineral Association ayaan marka hore ka mid ahay waxaa jirta Somaliland waa meel qani ah weliba waxa ku qani tahay macdinka laakiin unfortunately dadku ma fahamsana oo aqoon ma laha marka waxaan jeclaan lahaa in dadka la wacyigeliyo si looga soo baxo macdanaha kala jaadka ay ku jira dalka waxaad moodaa ma la isku raacaya inay tahay Somaliland second South Africa in minerals marka hadalka badan maayo waxaa keliya dadka ugu bushaareynayna inay Somaliland hodan ku tahay macdanta dadka hantida haysta waxaan ku boorinaynaa inay maal gashadaan dalka oo halka ay dibadaha uga dhoofayaan ubadkooda ay balaan macdanta ubadkooda si looga soo bixi karo macdanta dalka ku duugan Maxamed Jaamac Umal warbaahinta SBC Hargeysa